nabadgelyo saaxiibayaal maanta sidaad u jeediinba waxaa igala taagan sheekh caalim ah da'an yar oo ka mid ah sheekhdayda sheekh ka mid ah waaye marka sidaad ogtihiin baa hore waxaa idiin sheegay marka soonka la gelaayo ama soonka soo dhowaado inaan muxaadara aan biij kusoo jeedin doono maantana hadal badan aan galama rabo sheekha aan meesha nooga casuumin marka la socdo wixii asaan waxa ka dambeeyana asaan noo sheegi doona insha allah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون maanta waxaan isxasuusinaynaa maadaama ay nagu soo fool leedahay ama ay nagu soo dhowdahay bishii barakeysneed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qowlkiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii nabigii alla rumeeyow kutiba calaykum asiyaam waxaana lagu waajibiyey soon kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii lagu waajibiyey dadkii niga horreeyey xadiis uu warinayey abu hureyre nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka warinayey nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay man saama ramadaana ninkii soomaa bisha loo yaqaana ramadaan weliba waa qaamahu istaaga iimaanan asoo rumaysan iyo wa ixtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembihi in loo dhaafaayo dembigiisa in loo dhaafayo marka maadaama bishii barakeysneed aan ku jirno waxaan doonayaa inaan xasuusino waxyaabaha ay leedahay fadaa'isha bisha barakaysan saas darteed nabigeena calayhi salaatu wasalaam leeyahay qaala allahu tacaala kullu camalin ibni aadam lahu camal kasta oo ibni aadam uu qabanayo asoo u sugnaaday ajirkii uu ka heli lahay sida salaadii iyo waxyaabay dhammaanteed waa loo sheegay ila saa'ima soonka ma ahan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay soonka fainahu lii wa ana ajziu soonka anuu ii sugnaaday anaa awaalmarinaw sidaas darteed nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xilliga markii la gaaro ramadaanka asxaabtiisii uu u bishaaran jiray wuxuu dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis laga warinayey oo hawreere warinayey yubashiru asxaabuhu asxaabtiisii uu u bishaaran jiray wuxuu dhihi jiray qad jaa'akum waxaa nii imaaday shahru ramadaan bishii ahayd shahru ramadaan ayaa ii imaaday shahru mubaarak ahayd kutiba calaykum siyaamuhu ilaahi subxaanahu wa tacaala nagu waajibiyey soonkeeda nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay tuftaxu abwaaba samaa'i waxaa la furaa abwaabta ilbaabada samada ayaa la furaa wa tuqlaqu fiihi abwaaba aljaxiimi waxaa kaloo la xiraa abwaabta jaxiimo naarta abaabyaalkeedana waa la xiraa waxaa kaloo nabigeena calayhi salaatu wasalaam inooga sheegay shaydaankana waa la silsiladeyna saasoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam yiri bishaan barakaysan waxaa ku dhex sugan ayaa la yidhi leylatun khayrun min alfi shahrin habeen ka khayr badan kun bilood oo halkaas habeen intaad qabato iyo kunkaas bilood intaad qabato halkaas habeen intaad qabato ayaa khayr badan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi acdaytu ummatii ummaddayda waxaa la siiyey fii shahri ramadaana 5 khisaalin xaalooyin 5 ayaa la siiyey aan la siinin ummadihii horo ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee ka horreeyey aan la siinin ayaa ummaddayda la siiyey bishaan barakaysan dhexdeeda nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay waxyaabaha ummaddiisa la siiyey oo xaalooyinkaas waxaa ka mid khuluulu famu saa'imi qofka sooman afkiisa macnaha waxyaabahaas saaran sida labeentii waxyaalahaas oo qofka karahsanaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adyabu cinda allaahi min riixi lmiski waxay ka udeeg badan tahay waxyaabahaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha la isku carfiyo miskiga agtiisa way ugu udeeg badan tahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam noo sheegay in qofka sooman hurdadiisa ay tahay cibaado in qofka sooman nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nawmu saa'imi cibaadatun qofka sooman inta uu hurdaayo waxaa waaye waa cibaado waxaa kaloo nabigeena calayhi salaatu wasalaam noo sheegay qofka sooman aamuskiisana inuu yahay tasbiix nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi soonka anuu ii sugnaaday anaan awaalmarinaya sababtan waxay tahay
qofka wuxuu ka tegey shahwadiisa iyo dacaamkiisa min ajli dartay ugu tegey sidaas darteed anaa abaalmarina uu leeyahy nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofka sooman wuxuu leeyahay laba farxad farxadun waxaa waaye cinda fidrihi markuu afuraayo farxadda labaadna waxay tahay marka uu la kulmaayo ilaahay subxaanahu watacaala markii uu la kulmaayo ayaa waaye farxadda labaad saaxiibayaal muxaadaradaas yarta aanu maanta kugu talagalnay waxaan isku dayi doonaa inaan soo gelino muuqaalo badan oo soonka ka hadlaayo marka wax haddii nala soo gaarto ilaa dhammaadka isku day inaad janaalka xaqihiisa siiso ood like dhahdo subscribe-na soo dhahdo aad ayaad u mahadsan tahay wixii su'aalaha aad qabtaanna oo soonka ku saabsanna waad soo weydiin kartiin sheekheena noo joogo waa mahadsantiin dhammaantiin